Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba Amiirka Dowladda Qatar ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ka dhaxeeya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safar shaqo ku jooga dalka Qatar ayaa maanta wada hadallo la yeeshay Amiirka Dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka ayaa kulankooda isla soo qaaday arrimo dhowr ah ku saabsan xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Qatar iyo danaha ay wadaagaan si loo helo iskaashi wax ku ool ah oo labada dhinacba faa'iido u leh. Madaxweynaha iyo Amiirka ayaa isla gartay dardargelinta mashaariicda horumarineed ay dowladda Qatar ka fulinayso Soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee Soomaaliya iyo isu socodka badeecadaha iyo waliba dadweynaha. Kulanka madaxweynaha iyo Amiirka ayaa lagu lafaguray siyaabihii ay dowladda Qatar gacan uga geysan lahayd xoojinta amniga Soomaaliya gaar ahaan dhismaha ciidamada qalabka sida iyo sidii ay dowladda Soomaaliya ugu taageeri lahayd mashaariicda arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Labada dhinac ayaa waxay sidoo kale isla meel dhigeen in dowladda Qatar xoog saarto maalgashiga Soomaaliya gaar ahaan kalluumaysiga, xoolaha, beeraha iyo tamarta oo ay qayb weyn ka qaadan doonaan abuuridda fursado shaqo oo ay ka faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed. wadahadaladii ay maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Amiirka Dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad ku yeesheen diiwaanka Amiirka ee Dooxa wuxuu ahaa runtii wadahadal miro dhal ah kaas oo xoog lagu saarayay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar. waxaa sidoo kale Amiirku runtii ku bogaadiyay dowladda federaalka Soomaaliya horumarkii ay dowladdu ku tallaabsatay labadii sano ee u dambeysay. wuxuu kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhankiisa uga mahad celiyay Amiirka dowladda Qatar kaalinta ay Qatar ka qaadato horumarinta mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo sida dowladda Qatar ay u garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliya. waxaa kaloo la isla meel dhigay in dowladda Qatar ay ku sameyso maalgashi dhinacyo badan oo laga soo kabi karo dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga oo runtii aan baahi badan u qabno inay Soomaaliya hesho maalgashi la taaban karo si shaqo abuur fara badan ay uga helaan dadka Soomaaliyeed. waxaa kaloo xusid mudan in wasiiradii madaxweynaha ku helinaya safarkan ay kulamo iyo wada hadallo la yeesheen dhigooda. waxaan rajaynaynaa insha Allah in wada hadalladii guusha ku soo dhamaaday ee madaxweynaha iyo Amiirka dhex maray ay noqdaan kuwa miro dhala oo kaalin mug la ka qaata dowlad dhisidda Soomaaliya. waa mahadsantihiin.